السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا كحرن channel كنا دمانتي سو هذا صاحب بيال عاو ايام ديدي قدام بيه اما قد بدن marka ugu xisaab badan iyo program keenan oo ah program degdega oo hadda dhow soo dhacay ama waqti dhow marka la soo galiyay social media waa madaxweynihii Khaatume State madaxweyne Cabdiqaadir Axmed oo Cali Fadhiye oo markii ugu horeysay hadal adag oo digniin iyo hanjabaad marka u diray maamulkii Somaliland iyo arrimaha magaaladii Ceerigaabo madaxweyne Fadhiye ayaa sheegay inuusan marnaba u dul qaadanayn xaalina uusan ka noqon doonin in guriyihii la gubo la dhaco si qaab daran oo markaa xadkana ka baxsan loola dhaqmo waxa uu sheegay in uusan markaa maamulkiisu marnaba arrinkaas aysan dul qaadanaynin sida ugu dhaqsiyaha badanna xaaladii Ceerigaabo markaa lagu soo afjarayo taasoo marka macnaheedu noqonayo in dagaal waqtiga hadda ugu dhow dagaal marka ay ku qaadayaan maamulkii SSC Khaatume State magaalada Ceerigaabo waxa dheer oo uu sheegay inuusan raalina marka maamulkiisu ka noqonayn in dadka marka u dhashay maamulkii Khaatume State ama beeshii harti marnaba aysan suuragalayn in maamulkaasi uu maamulo raalina aysan ka ahayn madaxweyne Fadhiye markii ugu horeysay ayay ahayd oo caawa uu ka hadlo xaaladda Puntland iyo Khaatume State oo intii hadda muddadii aynu soo dhaafnayba la sheegay in uu khilaaf markaa dhex yaallo ama xaaladoodu aysan ahayn mid marnaba sidii hore markaa ah madaxweyne Fadhiye ayaa waxa uu ka hadlay xiriirka markaa Puntland iyo u dhaxeeya maamulkii Khaatume State sida oo kale waxa uu soo qaatay madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Cali Fadhiye xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu Xasan Sheekh Maxamed hogaaminayay iyo maamulkii Khaatume State ayadana u dhaxaysa haddaba qodobadan uu markaa ka hadlaya madaxweyne Axmed Cali Fadhiye ayaa ah qodobo aad u muhiim ah oo hadda intii muddada ahaydba laga sugaayay in marka madaxweyne Fadhiye uu ka hadlo bulshadana uu la wadaago balse ugu dambeyntii caawa ayay dhacday hawshaasna uu marka ka hadlay waxaanu rabnaa marka inaynu isla aragno qodobadan uu marka ka hadlay madaxweynuhu iyo hadallada hanjabaadda marka ku socota iyo xiriirka marka u dhaxeeya waa madaxweyne Fadhiye iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani xagee ayuu markaa marayaa ama maamulkii Khaatume State xiriirkaas xagee ayaa ay ka taagan tahay maadaama intii muddada ugu dambeysay la sheegayay in khilaaf u dhex yaallo warkii oo cad madaxweyne Fadhiye oo markaa inoo faahfaahiyay qadiyadda maamulkii Khaatume State iyo maamulkii Puntland oo ah laba maamul oo walaalo ah iyo hanjabaadda uu markaa u diray maamulkii Somaliland bal aynu isla aragno iyo xiriirka markaas uu uga warramay xiriirka markaa u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulkii Khaatume State waxa aynu ku bilaabanaynaa markaas oo programkeena ku waddan ku soo qaadanaa waa tan markaa maamulkii Khaatume State ugu hanjabay maamulkii Somaliland iyo xaaladda Ceerigaabo oo ah markaa mid dharka ku shareeran bal aynu isla aragno xaaladda colaadeed iyo dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada Ceerigaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag guryaheenu waxay noqdeen wax la boobay iyo wax la gubay iyo wax saamiga laga riday oo la qaybsaday maamulkeena waxa ka go'an in dadkeenaasi ku noqdaan guryahoodii waxaan u sheegayaa shacabka ee Khaatumo guud ahaan waxa la gaaray xilligii qof waliba gurigiisa uu fariisan lahaa ku nabadgelin lahaa meel kasta ahaadee boobkaas iyo barakicinta iyo guri gubidda dhacday oo aan ahayn dhaqan deegaanada tan lagu yaqiinay wallahi lama mahadin doono ilaahay idankii lama mahadin doono maamulka iyo shacabka reer Khaatumo iyagoo isku duuban waxa ka go'an in maasaadka iyo dhibaatada la soo afjaro noocay u noqoto wada noolaansho iyo darisnimadu waa inay ku timaadaa wax la isla doonayo ma jirto ma dhici karto wada noolaansho hal doonisa ku geli karta haddii la diiday oo la waayay nin waliba waxa uu ku khasban yahay inuu ku tallaabsado oo yeelo cidna loo sheegi maayo ilaa 8 jeer baa dadkeena Ceerigaabo iyo nawaaxigeeda dhibaato loogu geystay 8 jeer ama 8 gacmood dhacay dadkeenu waxay si shacbi uga jawaabeen hal gacan oo kaliya ama hal fal oo kaliya xaaladaha taagan waxa laga gudbi karayaa kaliya midnimada wadajirka shaqada aan guuleysanay balanteena waa midnimo qodobadaas uu markaa uga hadlay arrimaha xaaladda dagaal ee markaa ka taagan magaalada Ceerigaabo oo uu dhahay marnaba u dul qaadan mayno waliba maamulkii Khaatume State iyo dadka u dhashay waxaanu xaqiijinaynaa in ay guryahoodii ku laabtaan iyagoo markaas si nabada ugu noolaanaya oo taasina aan cidna markaa laga baryay xaaladdu mid sahlan ma ahan hadalka uu madaxweyne Fadhiye ku hadlayna gabi ahaanba markaa waa hadal hanjabaada oo maamulkii Somaliland markaa ku socda
oo ah kor iyo hoosba in magaaladii ceerigaaba la gelayo dadkii khaatumo state-na guryahoodii la gubay ee la dhacay ee la boobay ee magacyada lagu qoray la billaqaystay marnaba inaysan taa markaa u dulqaadanayn iyo dhaqan cusub oo ah mid ku soo kordhay deegaankaas oo aan horey loo aqoonin waa qaabka guryaha markaa loo billaqaystay ama loo gubay ama dadkii ceerigaaba deganaa loola dhaqmay madaxweyne firdhiye waxaa hadalkiisa ku cad sidii aynu hadalka hadday ku bilaabanayba madaxweyne firdhiye waxa uu hadda guud ahaan markaa ka hadlay waa maamulkii khaatumo state iyo dadkii markaa iyagoo u dhashay maamulkaas ee kasoo jeeday oo hadda aynu ognahay beeshii warsangeliye beeshii dhulbahante inaysan marnaba iyagu maamul ku wada socon balse ay laba maamul kala yihiin madaxweyne firdhiye halkaa wuxuu inagu caddeeyey markaas hadda in uu gooni ahaan markaa ugu hadlay waa maamulkii khaatumo state SSC balse tani aysan markaa khuseyn ama uusan hadalku ku jirin ama beel hartiba aysan markaa xaaladdu taagnayn maakhir statena kulley ayaguna go-aankooda waa mid meesha yaal oo aynu ka sugayna markaa hadalkan waa hadal markaa uu madaxweyne firdhiye hadda dhow si toosa markaa uga hadlay qodobkeena labaad waxa aynu kusoo qaadanaynaa oo marka aynu isla arkaynaa waa arrinka marka qadiyadda puntland iyo maamulkii khaatumo state khilaafka u dhexeeya waxa uu ku saabsan yahay heerka ay kala taagan yihiin ama maxaa uu markaa madaxweyne firdhiye maamulkii puntland ama saciid cabdullaahi dani heerkee ayay marka isla taagan yihiin bal waxaan rabnaa taasna inaynu ka dhagaysano madaxweyne axmed cali firdhiye iyo arrinkaas oo ahaaba mid ay bulshadu in badan rabtay inay wax badan ka ogaato bal aynu isla aragno arrinkaana waxa uu ka dhahay madaxweyne axmed cali firdhiye waa maxay xiriirka ka dhexeeya puntland iyo SSC khaatumo sidoo kale waa maxay xiriir ka dhexayn karaya SSC khaatumo iyo dowladda federaalka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo SSC khaatumo waa maamul madax bannaan ka arrimiya gebi ahaanba deegaanada SSC khaatumo una taagan rabitaanka shacabkan waxaa jira qorshayaal iyo barnaamijyo siyaasadeed oo lagu lafaguray kulamo kala dambeeyey oo ay yeesheen golaha fulintu waxaa lagaga hadlay sidii loo dejin lahaa qorshe iyo siyaasad cad oo aynu mara xiriirka puntland iyo qorshe iyo siyaasad cad oo aynu marayno xiriirkeena dowladda federaalka ah maamulka puntland waa maamul aynu darisnahay walaalanahay aynaan kala maarmi karayn labada dhanba waxaa looga baahan yahay oo la gudboon iyadoo oo laga shidaal qaadanayo xiriirka dhalasho ehelnimo derisnimo ee ka dhexeeya labada bulsho in laga shaqeeyo dhowrista iyo ixtiraamka maamul waliba qorshayaasha uu degsanayo waa bogaadinayaa waana ka mahadnaqayaa puntland iyo shacabkeedu dowrkii shariifka ahaa ee ay ku lahaayeen halgankii deegaanada tan lagaga saaray dadkii dhibaatada okay madaxweyne axmed cali firdhiye khilaafkii markaas ay inta badan dadku afka ku hayeen ama la sheegayay in uu markaa u dhexeeyo labadii maamul ee walaalaha ahaa dariska ahaa horta hadalka waxa uu ku bilaabay si aad u wanaagsan dadkii markaa iyagu gacan bidixaynayay ama rabay in khilaaf labadii maamul ay dhex keenaanna warcad oo ay ku qancaan ayaa horta ay meesha ka heleen waana wax aad u wanaagsan hadalkiisana sida uu ku bilowday waxaa nooga muuqda gebi ahaanba in uusan markaa wax khilaafa labadii maamul uusan dhex uulin waa uuna uga mahad celiyey hiilkii walaaltinimo ee qasabka ahayd oo ah mid aan uma baahnayn mahadcelin balse lagu qasbanaa marba hadday tahay dagaal markaa reerka qaar ka mida lagu soo qaaday si wanaagsan ayaanu qodobka ku bilaabay bal aan sii dhammaysano iskarabtaagoodaas iyo hiilkoodii fadliga ilaahay ka sokow waa ka inoo suura geliyey inaynu guulaysanahay isgarabtaagga iyo dareenka noocaasihi waa jiri doonaa baaqi buu ahaan doonaa inta labada bulsho ama bulshada isku midka ahi ay jirtaay maamulka SSC khaatumo dowladda puntland iyo shacabkeeda wax dhibaataa kuma qabaan sidoo kale ma jirto dowladda puntland iyo shacabkeedu dhibaato ay ku qabi karayaan ama ay ku qabaan maamulka SSC khaatumo iyo bulshadiis waxaanu ka duulaynaa in la ahaado laba maamul oo walaala ah oo derisa oo iskarabsada sidii lagu gaari lahaa iskaashi noocaasana qorshayaasheedii gacantaa lagu hayaa waxna waa ka bilaaban yihiin in maamulka SSC khaatumo iyo hoggaankeedu ay xiriir la sameeyaan dowladda federaalka ah okay tan dowladda federaalka ah waa aynu u soo laabanaynaa hadalkaas marka maamulkii puntland iyo u dhexeeya maamulkii khaatumo state madaxweyne axmed cali firdhiye waxa uu ka sheegay hadal aad u wanaagsan oo labadii dhinacba markaas ay ku qancayaan wax cad oo markaas nadiifana ah waa ay jirtay in hadda muddadii lasoo dhaafayba dad badan oo labadii dhinacba kasoo jeeda markaa hadalla isku tuurayeen arrinkii la siyaasadeeyey
meeshuna ay markaa u muuqatay in khilaaf markaa labada dhinac uu ka jiro balse hadda madaxweyne axmed cali firdhiye hadda waxa uu inoo caddeeyey marnaba inuusan markaa wax khilaafi dhex oolin labadii maamul ee walaalaha ahaa wixii ayaga markaa danahooda ama iskaga xiranna hadda ay tahay waqtigii marka inta la isu yimaado ama la wada fadhiisto guddi loo saaro kadibna si fiican oo toosa loo kala baxo waana hadal aad u wanaagsan dadkii ama cadow ha ahaadaan ama dad labadii maamulba kasoo kala jeeda ha ahaadaan arrimo badan oo la siyaasadaynayay guracneed ama si qaloocan loo arkayna hadda waxa aynu jirnaa horta in si toosoo cad markaa loogu kala baxay ama ay dadkii si toosoo cad markaa u fahmayaan balse ta weli arrinkeeda aanan si fiican u fahmayn waa arrinka magaaladii ceerigaabo madaxweyne firdhiye hadalkiisa waxa uu si toosa oo qeexan markaa ugu caddeeyey mas-uuliyadda isaga markaa saaran ee ah beeshii dhulbahante iyo reer SSC balse arrinka ayaga iyo maakhir dhexdooda ama beeshii dhulbahante iyo beeshii warsangeli in ay hal maamul isku yihiin ama ay qabiil ahaan harti ahaan markaa ku dagaalamayaan midnaba madaxweyne firdhiye arrinkaas ma caddaynin hadalkiisii ugu dambeeyey hadda kahor maalintii uu buuhood la joogayna sidan oo kale ayuu markaa u hadlay arrinkaas marka labada beelood ee isku danta ah ee iyagu harti waqooyi ah ilaa iyo hadda waxaa ii muuqata arrinkaasi inuusan meel wanaagsan ku socon ama uusan meel wanaagsan taagnayn waxay noqotaba waa arki doonaa waqtina uma hayno waxaan rabaa inaan balcabaar ka dhagaysano xiriirka markaa dowladdii federaalka iyo maamulkii khaatume state iyo caasimadda muqdisho kuma imaan gobolka fuul iyo aragti siyaasiya oo ku dhawaatay hebel iyo hebel ee waxay ku timi aan u hoggaansanay cahdiga ku-meel gaarka ah ee inoo qoran iyo bayaankeenii 6 February labadaba waxaa ku cad in deegaankan uu yahay deegaano ka tirsan dowladda federaalka ah maxaa loogu xusay ka tirsan federaalka waxaa loogu xusay fikirkan gooni-goosadka ah iyo u quusgoyntiisa dadakan iyo dalakeena waxay ka tirsan yihiin dalweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sidaasaa loo qoray qodobka koowaad ee cahdigeenna waxaa si cad ugu qeexan in deegaanada SSC Khaatumo uu ka dhashay maamul leeyahay SSC Khaatumo waxaa ku cad sohdinta maamulka waxaa ku cad goboladu ka kooban maamulkaas wuxuu farayaa cahdiga ku-meel gaarka inoo yaalay maamulka SSC Khaatumo khaasatan hoggaankiisu inay ka shaqeeyaan federaaleynta deegaankeena kan kaasaa sabab u ahaa in xiriirka federaalka la baadi doono loona howlgalo sidaba dhibaato uguma aha cid kale okay madaxweyne firdhiye arrinkan marka maamulkii khaatume state iyo dowladdii federaalka iyo qaabka markaa loo qaabilay ee maamulkii loo aqoonsaday loona howlgeliyey iyo axriyadii iyo saxiixyadii la kala qaatay waxa uu inoo sheegay markaas maamulkii khaatume state oo markaa ah SSC sool sanaag iyo cayn sida aynu xaqiiqda marka hubno gobolka sanaag majority waa gobol ay degan yihiin markaa beeshii warsangeli ama maakhir state ahaadaan ama beel ahaanba ha ku joogaan inta kale percentagekeedu aad ayaa u yeeryahay waxa uu madaxweyne firdhiye inoogu caddeeyey in markaa SSC uu federaalkii ka tirsan yahay maamulkii somalilandna markaa halkaa lagu quurgoynayo ee ahaa soomalidiidka balse ilaa iyo hadda madaxweyne firdhiye inooma caddaynin labadii beelood ee markaa harti waqooyi ahaa ee warsangeli iyo dhulbahante ah madaxweyne firdhiye waxaad u malaysaa arrinkaas si ay ahaataba inuu uga leexleexanayo meeshanna hadda waxau inoogu caddeeyey xiriirka markaa dowladdii federaalka iyo qaabka ay u rabto maamulkii SSC haddaba haddaysan labadii beelood markaa ku dhammayn ama aysan go-aan ku wada qaadan isaguna uu hadda halkaa afkiisa inooga caddeeyey in arrinkani uu yahay mid quseeya un markaa beeshii SSC Khaatumo oo beel hartina aysan ahayn warsangeli iyo dhulbahantana meel ay isku raacday uusan isagu inoo sheegin haddana uu madaxweyne firdhiye inuu dhaho yacni maamulkii gobolka sanaag waxa uu ka tirsan yahay maamulkii SSC Khaatumo beel warsangeli oo hal xildhibaan ama hal wasiir ama wax ku leh maamulkii Khaatume state aysan jirin shir ay isugu yimaadeen oo ay ku wada heshiiyeenna aynaan ogeyn meel uu ka dhacay madaxweyne firdhiye inuu dhaho dhib kama jiro waa maamulkii oo annaka ka mas-uul ah taasi hadhowto dhibkeeda ayay markaa leedahay in madaxweyne firdhiye uu marka wax fahmo ama mowqifkiisa uu markaa isagu labadan beelood ee wada dhashay gobolkan sanaagna uu rabo markaa in maamulkii Khaatume state uu dhaho waa ay ka tirsan tahay oo dowladdii federaalka ayaa halkaa ku caddaysay in maamulkii SSC gebi ahaanba markaa inta ay ku saxeexan tahay soodimaheeda ay markaa soo wada qabsato hadalkaasi ma cadda
madaxweyne firdhiyana arrin badan ayaa uu isku qasayaa kolley waxay ahaataba isaga hadda wuxuu sheegay soodimaha in SSC gebi ahaanba marka uu ka tirsan yahay maamulkii SSC arrinkan dhowr jeer oo horena waa aynu ka hadalnay mana ii muuqato wax wanaaga oo uu hadda marka laga reebo hanjabaadda Somaliland iyo xiriirkii maamulkii Puntland iyo kan Khaatume State iyo kan dowladda oo iyadna marka si wanaagsan uga hadlay xasan gurgurta maamulkiisa balse arrinka u dhaxeeya beeshii dhulbahante iyo beeshii Warsangeli iyo gobolkii Sanaag arrinkaasi ma cadda waana mid hadhow toole khilaaf ama dhibaato keeni kara ama dadkii ay iskaga hor iman karaan marka tallaabooyin walba oo la qaado aniga waxa ila muuqata in talaab qaldan ay noqonayso haddii aysan reerkan iyagu wada dhashay go'aan aysan meel wada dhigan ama aysan kuba heshin markaas wax badan oo qaldan ayaa halkaa igala muuqda balse ilaahay khayr ha ka dhigo wixii horta soo baxa waa arki doonaa videogana waxaan rabaa inaan halkaa kusoo gabagabeeyo intan uu marka uga hadlayay xiriirka dowladdii federaalka iyo maamulkii Khaatume State-na كل مهمتي إكدي ونكسند وأنا مقلنا بحي كلا كسر كردا أرن كان أنا إلا يهدا مدحك الروح يولدنا أنا نسفي عن أفهمين وحل يسكد محسن هاي وحا ونكسن أرن كان ملعب لوجا صهارة ملعبنا لوجو بصدق تاس أين بمركا أبو ونكسن أنت نهرت ميت فدرال يميت كلا يميت بلدان يميت زمالان بلجارين وحكم يبسن طلبنا بيرود إن أي كل يشان شررنا ولا يشان هذه كلا ماشي مدحوين فردية وحنو أركا خلادات بدن iyo wax hadhow dib keenaya in arrinka labada beelood ay noqon doonaan kullu ilaa khayr ka dhigo videogan waxa rabaa in halka kusoo gabagabeeyo wixii update ee inagu soo kordhay videogan video ku xigeentan isugu imaadna insha Allah waxa idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh